يقول ودادو حكوتنا علماء المكافحة علماء الله دقالك أرجع سده وحكمده إنه كويري ملها قاركود أو علماء قاركود النقاشين وكويري وحاتهين علماء اللي هذا محاربة الإرهاب علماء محاربة الإرهاب وحين أهيد مسألة دي كدلتي صومالي قلبيد هي كيس كيدي بيان أن كسو صارني هي النقاش كي كدشو شيخ شبلية سجد أحمري مسألة دا إيضا أيو مركا ودادي بيان كقري بوكا هالليا مركزو حليه وعلماء ريريد باتين رجع إرهاب كلا دقال منواتي إرهاب كرقل ده ما تقنا ورجع قال هذا وش قيوه قال هذا وش قيسان وحكم إذا أحيانا نقول السحي مرك وانكويري علماء الآن لا مكافحة الإرهاب واحد هي علماء العصبة واحد مي كان مدين سو قردر ما هذا الكاس هوا قردر روي محاكو جي وان حناقصن هاي طيب حنقول هدو حناق كوجي يا حسن أو هدو حناق كوجي حناق وينات كنترول شيء هيدا رجعني ورجعت كحد جذبتي أما كحلاشو أما واحد سميسا رسالة هذا تصوص صاريسو هكوسو بحضو أضو كان نقدي خلتك كان عذر دارني واي هاي بيوشيخ رسالة دي بصوب بحضي وإي كاني وان فيريي مسكومة تالو شيخي تلفون بانو دروحان هو شيخ سيدنا نسكو وجيني dadkii aad ku xadgudubtay inaad ka cudur daarato maadan ku soo qorina maxaa dhacay sheekh gadaal shaada wax badan baa isbedelay buuri waayahay baan idhi maxaa isbedeli kara ruux walaalka oo muslimood ku xadgudubto qirsanta inaad ku xadgudubto maxaa isbedeli kara cirdigiisu kuugu banaanaan kara miyaad garanaysaan idinka waaba saw awsha ayada ah inay aan aaminsanahay kitaab aan ku qoray markii aan qoray maxaa wax looga dhihi waayay niman la dagaalama mujaahidiinta iyo nin walbo gaal iska difaacay soo ma jiraan oo ka daran manaabirta fadhiya oo gaalkaba ka daran hadduu sheekhu xusuula asagu xasan wuxuu taageeraa si in la'aana kooxyaha xaq jirka warkaas lama garanayo niman la dagaalama dadkii xaq jir u arkaan iyo mutatarrifiin iyo irhaabiyiin la dagaalan wadaado duub waaweyn oo dhaqaale ku qaataa jira gaalana way la dagaalamaan ee waxa laga yaabaa in caamilku iyo baacidku kala duwan yahay oo ninkan wuxuu la dagaalamay waa muslimiina baabi'i oo gaalka ah ninka wadaadkeen haysanana wuxuu la dagaalamayaa fitna iyo inxiraaf manajis oo la dagaalan biyo shuk waa maxay labadin wax la dagaalamaysan mujaahidiintii waxaad irhaab u taqaanaan nimankana waa galo horaan bacol baan ahayn idinkuna wadaadab waxaad aafaysane in lidinka diga weeye inta la awoodi karo sheekhu aniga iyo saaxiibaday ilaahay halmaayaan aafaysanahay buu arkay marka waana naga digay dhanka kale ragga saaxiibada in laga digo sheekhu muxuu ku diidahayaa yani waa hawlahan la yaabay isdiwaajiyada isdiwaaj macaayir wixii oran jiray way waa hawl dhib badan waa hawsha iyada ah qadiyad wuxuu sheekhu hadana ithaareeyay مسألة العطف الأسري وأجي الصومالية قبل أي دفاعات بيانات كأي السعودية لا دقالمة أي مساجد أي بلاباتي يعني شيخ يا صاحبي وحان كتهم هي دفاع الصومالية قبل الدفاع هي دين ما هي وتعصب قيس وأبصم أهيلين يقعد النبى إن قاضي بان كهالي إن يقضب النحين ويسن دين أهم بأي مقتوانا كهالي هوش بالشيخ آد وقحان وصدي كدب وحكفا إذا يستي قضية مرضى عدو عجل أنتو أروريي حقوق دب الله أركي باقويسكي أنا جاهبيني حاجة أنتي قبتين بين شيخ هاللي قالي عجليه وحدونها قصة مايو هشية على مصار كعانة شب وحول بوكيال سيدي بان يلو كعانة شب أيوة مضحان كدهم كبار هلا وبانكور أضابي الدلي لك أدنا ونفعل له لما عنا تانك على هذا الشيء ضد يعني مركز الشيخ محمد الأحمر يسير رسالة دي بان كوقري مسائل فربضان والشيخ محمود خسيسي يكون جود بقى خيركم وحي حكومين إلى أن شيخ وحكو إذا ما خلاف كرتت يال وحكو يال أنا ديش وحلو كتابك أنت تنصوصر قدام بيا وتنبيهاتك الصوم مري سو سيزة تيدي سبلايا كدقاقي يكن وانو جاي صفحات بدن يا مسائل بدن بوجوي وشيخ محمود خسيب وشيخ خالد جويو هل حذفي تحذف هذه الفقرات والمعلومات وان حذفي لما قضب صهدي علماء مكافحة الإرهاب إيو وداده وحكم مقنية العطف الأسري
danqasho qabiil iyo qoys inaad ree Soomaaliga u difaacaysan oo san diin ahay waana asbaabayo aminkan meesha way ku jirtaa annagu wada fadhino qadiyadan labadan qodob waa inaad reebto waxaan ku labadan qodob wax ii muuqday weeye bal u kaada sheekhu waa isku dhibay qaabkan oo digtad ahayd wuu hadlay intuu wareegaysan karay ama weerar karay nin baa nala fadhiyay waxaan ku iri icaatu nadar baan ku sameyn icaatu nadar waa inta aanu ku xusuus sheekhu qaabka uu dhigay oo hawlo kale ka sii daayay oo aan meesha ku ogeyn icaatu nadar baan ku sameeyay kitaabka intuu hal xadfo waan xadfay ama kana kitaabku uu yaala labada mas'alo waxaan arkay inay munaasabto meesha loo daayo kadib uu sheekhu soo wuxuu labada mas'alo maxad u goyn weyday in meeshooda loo daayo sida ay yihiin baa ila qumanaataan ku ori sheekhu qaab kale u dhigay sida bay ku baxday العطف الأسري ودادك كو إيديي iyo saaxiibadii waxaan rabaa inaan in dul istaago jabhadii Soomaali galbeed sheekhu waa difaacay gaalnimo in la saarana wuu diiday shariifkii saaxiibadiina uu ku duulahayay isku sabab iyo isku wax bay sheegteen kuwan dastuur bay aqbaleen oo qaateen shariifkuna dastuur buu qaato aqbalay Abdullah Yusuf buu takfiirin jiray oo dastuuri wixii la ku takfiirin jiray sheekh oo la og yahay nimankaas Soomaalida kala iyo daaroodkii hawiyaha kala waxaad u difaaci weyday kuwana adugu naf bixi sheekh maxamed oo maxay tahay baani muuqatay ee muhaadaradii aan dhigayna aad ugu weerarto tiri khafiifi maqaalaadka aan qorna go hawsha ka hadlin hawsha iska ilaali dagaalkii dhacay waad ogtay waxa ay muuqatay qadiyadana inay tahay qadiyad qoys oo aysan ahayn qadiyad diineed warhawshan hawla qiyaas iyo taqdiir shakhsi aweeye adoo niman baad ku tuhuntaa anigu wuxuu ku tuhunsan yahay in si indhala aana nimanka wax kasto ay sameeyaan aan maro u saaro u difaaco hadaan taan kugu tuhmo inaad Soomaali galbeed ku naf baxayso maxaa dhib ku jira waxa aad u soo ogashay dadka in la ogolaada wanaagsan